أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسار هلجن وهذا وذا قرنا إنسان سومالنا أنية ذكوية كدل شوجة يكود بتشوجة سومالنا وين قال حيسا وحي سهري قار ولا ضحي ماها لكن وحي سهري تعيش حي يعني سومالنا هواك سناته ويوناك سناته ورمرنا قاعدون عدنا عد من نعبة أنا عد من نعبي عد قارة أو عن نعبة هاي أو عن ما أنت أورانا يو عدا سان نعبة هاي ما شرته لكن وحي كوكوبيه إن الصومالي لان دفاعه شلي تولي وحندوبي فيديو عن محي هايدي كدفاعي قديد الصومالي لان لكن ابن آدم بالي هو ده إلهي وحيد قفك ابن آدم كوانو عرون كره لكن إنه كسر نقطة مهمة وقلت كي سقاطه شريت ولا فيديو جي وحن كسو جبي إن حلبانو كم ذا حلبان ذا صوماليا وهالكيمي أو محن هذا يعني أنا واحد لنا لقى مقالون دي هاي سعدية أو هيس سوهر تاجو ومضى رئيس سومالان إنه كتراسلي فكر كأمسنا إيو محا هاي إيو وحو مسكح دي سكوا هي وحنا ركي إني تحي سومالان إلا عقال لو يشرتيو ده وانا لإيماني حمر وانا لتجي وحنا ركي إن مركان ديبو فريستي إن كوي شري هالكلمة ضحكاها ما أنت هالكلمة ضحكيه marka waxaan anigu shakhsi ahaan anoo Soomaaliland jecel oo Soomaalilandnimadu dhabiga tahay oo ogtiin waxaan cid u colaadsada oo aan ummadayda maxay ahaydey waliba dadkan ka dhashay reesha Isxaaqan u colaadsada inay tahay inay qalad iyo gafbay ku tahay Somaliland waan jecelahay waa la ogyahay shalay caradii kelmad bay iga keentay waxaanan maxaa hayday kelmadda ku idhi inaan ilmaadeernahay oo prime minister ku xigeenka ah halka kelmad gafa oo aan ku idhi caadaqaate ugamaan jeedin anu caadaqaate nasab ahaan ugamaan jeedin laakiin dadka taga xaggaas hadana hadimada ku haya Somaliland baan uga jeeday waayo kuwa badan oo halka jooga oo maanta hantidoodii halkan ka dhisanto halka wax ka shaday ayaa buuxa oo la arkaya la dhaafaya marka wax aniga saare ahaan maxay hayday gaar ay iigu sameeyeen ma jirto inanka iyo dadkiisa iyo hablaha walaaladiiba waan ka raali gelinayaa kelmadda aan idhi maxay hayday iyo reer Somaliland caado uma lihi inaan intaan soo fariisto halkan dadka caayo laakiin caado waxaan u leeyahay halkan intaan soo fariisto Somaliland difaaco waxaanan hubaa kuwa maanta aan u caroonayay shalay toole godobta ku mutaystay ee xildhibaanadaahi maanta markay yimaadaan inay baarlamankoodii fariisanayaan marka waxaan leeyahay Soomaali aniga raallihayga ahaato